tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xulka qaranka Portugal Jose Mourinho ayaa ka yaabiyay dhammaan wariyaashii soo xaadiray shirkiisii jiraa'id ee ka hor kulanka Watford wuxuuna macalinka reer Portugal isagoo ka hadlaya koofitaankii banaanka garoonka Wembley sheegay inuu kala ujeedo gaar ah waxaa baraha bulshada aad looga hadal qaaday muuqaal laga soo duubay tababara Mourinho oo ku kufay banaanka garoonka Wembley ka hor kulanka ay wada ciyaareen Spain iyo England ee ka tirsanaa tartanka UEFA National League waxayna ahayd ciyaar La Roja 1-2 ku badiyeen si kastaba Jose Mourinho ayaa wajahay wariyaasha waana macalina inta badan aad u jecelin wariyaasha maadaama uu abuuro cinwaano aan caadi ahayn wariyaasha waxay ku cadaadiyeen in uu ka hadlo arrinka wuxuuna yiri waa dadka kuwa ii yeera haddana ii weydiiya koofitaanka Wembley sababtoo waxay doonayeen in ay war iga sameeyaan waxaan u sameeyay ujeedo si aad adinka saxaafada waxay uga hadashaan naftayda Jose Mourinho wuxuu saxaafada kaga qoslay koofitaankiisii banaanka Wembley ee kula ujeedada in iyagu mowduuca ugu abuuro mid waliba oo kamid ah ayaana qoslay sidoo kale waxa la weydiiyay haddii ay dhibaato soo gaadhay maya wax dhibaato ah ima soo gaadhin waxay ahayd jilin istuuris fiican waxaan difaacay oo aan ilaashada teleefankeyga ragore lagama dhigin wax kaar jaalahna lama siin ayuu mar kale yiri macalin Jose Mourinho oo shalay ka yaabsaday wariyaashii yimid shirkiisii jiraa'id